Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Mustafa Cabdilaahi. Maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago sheeko yar oo kooban oo ku taalla buugga la yidhaahdo Faatatnii Salaa. Buuggaas oo guud ahaan ka hadlaya ahamiyadda ay salaadu leedahay. Haddii aad buugga akhridana aad fahmayso waxyaabo fara badan oo ay salaadu muhiim ku tahay. Tusaale ahaan tusaale yar oo kooban haddaan soo qaato, waxaad arkaysaa dad fara badan oo salaada si fiican u tukado masaajidka welibana mar walba ku arkayso, iyo dadka qaar aad arkayso iyagoo masaajidkiisa garamaraya tii salaada lagu jiro amba aan salaadii ahmiyad aad u sii ridan aan salaada siinayn oo mar walba aad arkayso inay wax kale iskaga mashquulsan yihiin. Iminka labadaa qof oo kale su-aasha isweydiinaysaa waxa weeyaan, labadan qof ma mid baa power weyn? Waayo sabab may midna salaadu ay ugu fududaato salaad si fiican ugu tukanaya, midna uu masaajidka iskaga garamaraya isagoo salaada lagu jiro. Waxa weeyaan su-aalaha inta badan la isweydiiyay ka mid tahay. Intaas iyo dheeraadba buugga waad ka faa'iidi doontaa, oo markaa qof walba luqadda carabiga yaqaana waxaan kula talin lahaa amba aan ku boorin lahaa inuu buugga akhriyo. Waayo wax fara badan buu ka anfacayaa, wax badan oo kaa qaldanaa buu kuu saxayaa. Markaan intaa kaga nimaadno soo jeedinta buugga, waxaynu gudagalnay iminka sheekadeena iyo waxa ay ka hadlayso. Waxaan idin rajeynayaa dhegeysi wacan. Gabadh 42 jir ah ayaa waxa ay gashay qolka qalliinka iyada oo lugaheega ku socota, waxna maqlaysa, wax arkaysa, hadli karaysana. Sidaas ahayd ayuunba si kedis ah ayaa waxa u dhacay. Marka uu wadnihii istaagay kadib ayaa dhakhaatiirtii waxay isku dayeen inay wadnihii dib u firfircoonaysiiyaan, laakiin nasiib darro 3 daqiiqo ayuu dhiiggii ka habsaamay maskaxda, taasoo ku sababtay inay gabadhii qayb maskaxda ka mid ah ay ka naafowdo, qaybtaasoo ah maqalka, aragga iyo hadalkaba. Ilaahay baa mahad iskale, dhiiggeena ku wareejiyay jidhka idil ahaantii, tiyo aanay ahayn awood xaggeena ka timaad amba xeelad. Markaas gabadhii qalliinkii waxa ay ka soo baxday iyada oon arkayn, maqlayn, hadli karayn. Waxa ay sidaa ahayd gabadhii muddo 9 bilood ah, sidii qolfoof meel yaalla oo qalbigu garaacmayo oo kale. Iyada oo gabadhii xaaladda ku jirta ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo maray dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirta Ilaahay taqaana. Markaasaa waxa uu arkay inankeygii oo meel ka ooyaya. Waxa uu weydiiyey su'aalo, waxa uu ku yidhaahday, maxaa ku helay? Waxa ay dhakhaatiirta oo dhan ay yidhaahdeen, hooyadaa ma dhaqaaqayso ilaa iyo inta ay dhimanayso. Markaasaa ninkii waxa uu ku yidhaahday, mid ka mid ah dhakhaatiirtaasi miyuu unug ka mid ah unugyada maskaxda ee hooyadaa uu abuuray markii hore? Mayso ma aha. Haddaba haynu maqalno innagoo Ilaaha wax walba og ee xikmadda badan leh ee quraankiisa ku yidhaahday, wain yamsaskumullahu bidurrin falaa kaashifa lahu illaa huu. Intaa kadib ayaa waxa uu bilaabay ninkii dhakhtarka ah inuu wiilkii yaraa hooyadii uu ku akhriyo isaga oo si dhab ah u rumaysan aayadaha uu akhrinayo. Markaasaa waxa uu ku bilaabay suuratul Faatixa. Waxa kale oo uu akhriyay aayado ka mid ah suuratu al-Israa. وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. marka uu intaa dhameeyay ayaa waxa kale oo uu akhriyay aayado ka mid ah qul kunuu xijaaratan aw xadiida. Markaa isagoo sheegaya wiilkii yaraa inuu qadarka Ilaahay ka weyn yahay waxa ay dhakhaatiirtu yidhaahdeen, ayaa waxa uu akhriyay aayad kale oo ku jirta suuratu Ruum isaga oo leh hadalka Ilaahay ee ah, ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. markii uu intaa dhameeyay ninkii doctorka ayaa waxa uu yidhaahday, Ilaahayow adaa xumaan kana sahane, cirka iyo dhulkuba amarkaagay ku taagan yihiin. Rabbigayow miyaanay gabadhan istaagi karayn iyaduna? Marka uu intaa yidhaahday kadib ayaa waxa uu akhriyay aayad kale oo ka mid ah suuratul Baqara, waxaana uu akhriyay hadalka Ilaahay ee ah, alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu thumma axyaahum ina allaha laduu fadlin cala annaasi walaakina akthara annaasi laa yashkuruun. marka uu intaa akhriyay ayaa waxa uu yidhaahday, Ilaahayow sida aad dadkaaba u soo noolaysay u soo noolee gabadhan maskax ahaan u dhimatay. Waxa uu akhriyay isaga oo eegaya kombiyuutarka.
sheegaya maskaxda gabadha. Waxaabad moodaaba inay maskaxda gabadhu maran tahay. Markaasaa waxa uu yidhaahday Ilaahayow waxa ay dhakhaatiirtu sheegayaan inaanay gabadhani dib u kacayn, laakiin Ilaahayow adigu wax walba waad awoodaa. Intaas kadib haddana waxa uu akhriyay kayfa nunshisuhaa thumma naksuuhaa laxmaa, isaga oo suuraysanaya siduu Ilaahay dib ugu abuurayo unugyadaa dhintay. Marka uu ninkii dhakhtarka ah uu intaa akhriyay ayaa uu la hadlay gabadhii, markaasi ay madaxeega dhaqaajisay. Marka uu arkay in ay madaxeegii dhaqaajisay markaasuu waxa uu ka codsaday inay gacmaheega dhaqaajiso. Markaasay gabadhiina gacmaheegii dhaqaajisay oo ay indhahana kala qaaday. Markii ay sidaa indhaha u kala qaaday ayaa inankeegii uu ka cararay oo gacmaha iyo lugahaba uu ka dhunkaday. Markaasaa gabadh kalkaalisa ah oo meesha joogtay ay ku dhawaaqday iyada oo ku qaylinaysa, ha ahaato adduunyadu sida ay tahay, adiguna had ahaatid agta Ilaaha wax walba awooda.